barnaamijka bandhiga VOA toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa taariikhda webiga Niil oo la aaminsan yahay inuu yahay webiga ugu dheer dunida isla markaana ahmiyad weyn u leh wadamo dhowr ah oo ku yaala qaaradda Afrika. dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay joojinayso malaayiin dollar oo kaalmo ah oo ay siiso dawladda Itoobiya haddii sida la sheegay xal loo heli waayo muranka ka taagan buuxinta biyo xidheenka Itoobiya ay ka wado webiga Niil. bishan September ayaa saddexda wadan ee Masar, Itoobiya iyo Suudaan ay u ballansan yihiin inay shir iskugu yimaadaan si isafgarad looga gaadho muddada suurtagalka ah ee Itoobiya biyo xidheenkeeda ku buuxin karto iyadoo aan wax dhibaato ah ka soo gaadhayn dawladaha Masar iyo Suudaan. haddaba barnaamijkeena bandhiga VOA ayaynu ku lafaguraynaa taariikhda webigaasi Niil, meelaha uu ka soo bilaabmo iyo dawladaha sida weyn ay noloshoodu ugu tiirsan tahay. ugu horeyn Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah suxufi ku takhasusay arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe kuna sugan dalka Britain ayaa ka waramaya taariikhda webigaasi. marka aynu maqalno Niil waxa uu ka kooban yahay laba webi oo midna wuxuu ka yimaadaa Uganda midna wuxuu ka yimaadaa waxa weyn Itoobiya oo xalada Tana. ka yimaada Uganda wuxuu ka soo farcamaa harada la yiraahdo Victoria waa haro weyn oo waxa weeyaan in badan jirtay laakiin waxay u dhaxaysaa qofkii tagay un baa tagay Uganda, Kenya iyo Tanzania. marka uu ka soo baxo laagtaasi marka ay saa u soo dareerto ay soo marto Uganda markay soo marto halkaas Suudaan bay kaga soo dhacaysaa kadibna waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ama Khartoum. kalena waxay ka soo baxaysaa Itoobiya oo Tana la yiraahdo waara la yiraahdo Tano. halkaas waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ayay ku soo dhacaysaa markay Itoobiya ka timaado oo Khartoum ay labadii webi kii ka yimi Victoria iyo kii ka yimi Tana waxay isku soo dhacayaan Khartoum marka waxay la baxayaan Niil. marka Suudaan iyo Masar waxay noqdeen meel biyuhu ay ku dhacaan. Ugandana waxay noqotay iyo Itoobiyana meel labaduba ay ka soo baxaan. labada waxa aad uga faa'iiday Suudaan iyo Masar ayaa aad uga faa'iiday oo biyihii weynaa waxay labadiyo biyo isku soo dhacay ayaa biyo fara badan noqonaya. in Tanzania iyo Kenya way ka faa'iideystaan iyagu laakiin heerkan ay ugu soo dhacayaan Suudaan iyo Masar wali waxa weeyaan ugamay faa'iideysan. Burundi baa lamida, Rwanda lamida, 11 dal ayaa lagu tilmaamaa dalalka webiyaashan ama waxa webiyada faraha badan leh Afrika bartankeeda ka soo farcamay ay waxa weeyaan ay ka faa'iideystaan. dalka Masar ayaa muddo aad u dheer ku tiirsanaa ka faa'iideysiga webiga Niil waxaana haatan walaac xoogan ka qabaan caqabado kaga iman kara biyo xidheenka Itoobiya. waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacad ku taala gobolka Alberta ee dalka Canada oo arrimahaasi faahfaahinaya. biyaha Niilka waxa aad uga faa'iideystaa oo ugu badan waa Masar weeyi. heshiis yar oo waxa jira iyagii ay kala saxiixdeen Suudaan 1959 oo dhigaya in Suudaan biyaha qaadato 25 Egypt ay qaadato 75 wixii ka sareeyay wadamada xagga sare ee kuma ay xisaabtaminba oo laba wadaas oo la yiraahdo wadamada downstream ka yiraahdaan baa qaybsamay. Ethiopia markaa imika waxa leedahay daanuna qaybteedii inaan helo weeyaan oo dhamaan baan u baahnahay. Egypt markaa waxa leedahay haddii sidaa sameeysan de waxa yaraanaya qaybtaydii ayaa meesha ka baxaysa. Suudaan iyadu maanta way ogolaatay oo awalba 25 bay ku lahayd way ogolaatay 25 keedina runtii way ka faa'iideystay oo dhaamis badan bay sameysay shiinu u dhisay. Ethiopia waxa la xaq baan u lahayn laakiin sharci dhigaya baa jira oo international oranaya haddii kuwa xagga uu ka bilaabo Niilkii biyahaasi ay magaranaysaa doonayaan wax ka sameeyaan waa inay marka hore kala tashadaan qolada hadda biyaha ka faa'iideysata ee magaranaysaa de kamid ah Suudaan iyo Egypt oo ay tusdaay cadeeyaan in dhibaato weyn inaan uga imanaynin waa inay cadeeyaan. dhawaan ayuu ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed sheegay in sanadkii koobaad ee biyaha lagu shubayay dhaamkaasi uu soo idlaaday kaasi oo haddii uu hirgalo faa'iido dhaqaale iyo horumar u keenayo dalka Itoobiya iyo wadamada la dariska. waxaanu ra'iisul wasaaruhu sheegay inaanay wax dhibaato u keenay wadamada biyahaasi ay wadaagaan. Itoobiya waxay hore u sheegtay in biyo xidheenkaasi ay ku buuxinayso muddo 3 sanadood halka ay Masarna ku doodayso in wax ka yar 10 sanadood aan lagu buuxin karin. Suudaan ayaa u muuqata mid dhexdhexaad ka ah muddada labada dhinac ee aadka u kala fog. waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana. in marka imika dib loo shiro waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in waxa la isku hayo in la xaliyo oo ah in 10 sano ay Masar dalbanayso in lagu buuxiyo biyo xidheenka haddii abaar ay timaado
maxaa damaanada inaan biyaha la sii wadahayn leexintiisa iyo maxaa damaanada inuu jabi karo oo biyo xidheenkan uu yahay biyo xidheen adag oo biyaha aan soo deynahayn waayo hadduu biyo xidheenkani uu jabo waa meel aad u weyn hadduu jabo waxaa dhici karta inuu qarqiyo Suudaan oo dhan inuu baabiyoba oo waxa weeyaan dee uu soo jiiro oo markaa dad badan waxa weeyaan iyo xoolo badan iyo dee guryo iyo dee wada rogoba oo dhinaca kale uu rogo markaa saxiix baa loo baahan yahay Cabdiraxmaan maxaa lagu macnayn karaa doorkan dhexdhexaadnimada u muuqda ee dalka Suudaan waxaa lagu qanciyay dhowr iyo 5 sano 6 sano ka hor in ay faa'iido u leedahay oo fatahaad fara badan oo imika xitaa wiig ka hor ku dhacday baa jirta Suudaan oo fatahaad fara badan ayuu leeyahay wabigani marka uu waxa weeyaan si dhaxmariyay Suudaan marka fatahaadahaas inuu ka sahlayo marka la yareeyo biyihii iyo leer fara badan oo bilaash ay helayaan hadii wabigaasi ama biyo xidhaankaasi uu hirgalo waana ta ku kaliftay inay markastaba ay isku dayaan inay dhexdhexaadiyaan Masar iyo Ethiopia marka Masar ayaa aad runtii dee wabigan aad uga faa'iidi jirtay marka hadiiba waxa weeyaan biyo xidhaankaasi uu hirgalo dhibaato weyn buu ku keenayaa Masar waxaana dhici kartaba in waxa weeyaan wixii ay beeri jireen inay kala badhba ay waxa weeyaan ay joojiyaan sida bariiska oo kale way bariisku biyo badan buu qaataa in beerahoodii ay baaba'aan in nolol ahaan ay baaba'aan dawladda Britain ayaa iyaguna dhawaan soo saaray qaraar u muuqda inay garabka u dhaweynayaan dhinaca dawladda Masar waxaana jiray heshiis isla wabiga Niil ku saabsan oo dawladda Britain qayb ka ahayd oo qalinka lagu duugay sanadihii 1920 Cabdullaahi Maxamed Cali oo ah suxufi ka faallooda arrimaha caalamka oo ku sugan magaalada London ayaa sharaxaya kaalinta wadamada reer galbeedka ee muranka u dhaxeeya wadamada Masar iyo Ethiopia xaqiiqadii Sahray waxa la ogsoon yahay sideedaba dalka Britain iyo dalka Mareykanku inta badan arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika la fahantiisa wax moodaan isku siyaasad ka yihiin inta badan marka arrintan la eego Masar iyo Ethiopia iyo biyo qabatigan ama daamkan Ethiopia ee wabiga Nile dalka Britain waxa la dareemay bishii 6 markii murankan Masar iyo Ethiopia soo baxay bishii 6 ee sanadkan aynu ku jirnay 2020 ayaa safaaradda ay Britain ku leedahay magaalada Qaahiro waxa ka soo baxay hadal bayaana oo lagu sheegay in xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab uu cadeeyay digiisa dalka Masar in Britain ay diyaar u tahay in ay Masar kala shaqeyso oo ay xoojiso dhinaceeda arrinka muranka biyaha Nile ee u dhaxeeya Masar iyo Ethiopia taasina waxa lagu turjumay oo loo qaaday marka la qaada dhigay la eegay in dhinaca Masar ay dalkan Britain ay la safan tahay taariikhdan hadda dib u celino Masar iyo Ethiopia markay noqoto dalka Britain waxa xiriir dheer ka soo dhaxeeyay oo wax wada qabsi dhinaca danaha dalka Britain dalka Masar sidoo kalena dalka Masar wuxuu ku fadhiyaa gacan muhiim ah oo gacankaasi Suez Canal-ka la yiraahdo oo dalka Britain uu yahay dalkii balaadintiisa iyo isticmaalkiisa iyo ilaalintiisa iyo ka shaqayntiisaba bilowgii hore ku jiray sidaas awgeed dalka Masar waxaan looga maarmi karin gacankaasi Suez Canal-ka sidaas awgeed dalka Britain waxaanay marnaba qarsanin inay muranka wabiga Nile ayadu la safan tahay dhinaca dalka Masar markay noqoto Ethiopia sidaas awgeed dawladda dalka Britain waxa ay ka mid noqoto wadamo doonaya in loo hoggaansamo taladii dhinaca Mareykanka ka soo baxday ee ahayd muddada lagu buuxin doono daamkaasi ay Ethiopia dhisatay si dalka Masarna aanay ugu dhicin biyo la'aan xiisadda wabiga Niil oo muddo dheer soo taxnayd ayaa saameyn ku yeelata wadamo kale oo ku yaala gobolka waa kan Cabdiraxmaan Xadaana oo ka hadlaya saameynta siyaasadeed ee ka soo gaadha wadamada ku yaala geeska Afrika dawladaha ay raadka ku yeelatay in khilaafkan ku dhaxeeya Ethiopia iyo Masar amba aynu dhinacanaano Suudaan iyo Masar oo dhinaca iyo Ethiopia dhinaca wuxuu raad ku yeeshay Djibouti wuxuu raad ku yeeshay Soomaaliya iyo de Somaliland oo iyadoo lafteedu ilaa hadda la waan goostay marka dhibtu waxay ka timi markii wax weyn heshiisyadii Carabta markii shirarka Carabta la isku yimi Soomaaliya iyo Djibouti waxay diideen inay saxeexaan in Masar la doono in marka taas waxay keentay inay ka careysiiso Masar waa tan imaka in u timi Muuse Biixi amba wax weeyaan Somaliland madaxweynaha Muuse Biixina la kulantay niman saraakiil iyo niman aqoon-yahan oo ku saabsan xagga wax weeyaan xagga istiraatiijiga
sida saldhiga iyo waxa ma garanaysaa ay kala hadleen sida jaraa'idka adduunka oo dhan uu sheegay ama Mareykankuba jaraa'idada ugu waaweyn ay qoreen in marka taasi waxay keenaysaa baa laba arrimood inay Soomaaliya ay leedahay haddii aadna sii weydo Somaliland waan ula gorgortamaynaa marka taynu waxa weeyaan aynu fahmi karnaa waxa weeyaan in ay Masar awoodda saarayso inaan niilkaasi aanu dhib ku keenin wax kasto ay u mari karto amba saldhig ha samaysato ha ka samaysto Eritrea amba saldhig ha ka samaysto Somaliland amba saldhig ha ka samaysto Soomaaliyada kale waxa weeyaan mar kasta waxa isku dayaysaa in Masar inaanay marnaba aanay Ethiopia aanay u lagu fudin amba aanay u ogolaan in ay niilkeeda ay taataabato oo ay dadkeeda ay haraadiso garnaqa muranka labada wadan ee Ethiopia iyo Masar ayaa haatan gacanta ugu jira wadamada Afrika mar horena Mareykanka ayaa ku taliyay in meel dhaxal la iskugu yimaado oo Ethiopia ay muddo 5 sanadood ku buuxiso biyo xireenkeeda balse qorshahaasi heshiis rasmi ah lagama gaarin Professor Hussein Warsame ayaa rajo ka muujiyay in khilaafkaasi si fudud loo xallin karo arrintu sida inay culays looga dhigay inay u noqoto maaha oo waa arrimo la xalili karay waxa meesha ka jira colaad in lagu xalilana cidna dan u noqon mayso arrinta xaqiiqda iminka taagani waxa weeyaan haddaan technique ahaan u soo noqono biyo xidheemka laga dhisayaana wuxuu leeyahay baaxad weyn buu leeyahay Nile ku ka sameysmaa waa laba webi weeye midka white ka yiraahdaan oo aan Ethiopia soo dhexmarin midka cad iyo kan buluuga ka yiraahdaan oo ka yimaada Ethiopia waa ka buluuga waxa laga hadlayaa ka buluugana biyaha ugu badan soo maray meesha ku kulmaan waa Khartoum weey ka buluuga marka biyihii ka soo baxayay hal sano biyihii ka soo baxayay ayuu reservoir marka la buuxinayo daamka la buuxinayo hal sano intii biyihii mariyay buu qaadanaya laakiin waxay doonayeen inay ku sameeyaan Ethiopiaanku dhowr sano oo sanadkan in yar ay meeshii buuxiyaan sanadka dambana ay sii buuxiyaan sanadka saddexaad ay buuxiyaan inta marka in yarba mar buuxsamaya intaasi waxa la leeyahay ka dhimi mayso wax badan wadamada Suudaan iyo Masar hadaan laga badbadinaynin waa taa arinta ay Suudaan raalli uga tahay hadda guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhiga VOA ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamadda gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafiyo lana wadaag saaxiibada haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo